haliyey maxamed cabdulle xalane wuxuu ku dhashay gugii ku aadanaa 1939kii degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud asigoona xoogga dalka ku biiray 1957dii waxaa lagu dilay dagaalkii dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya sanadkii 1964 xalane wuxuu ahaa nin askari ah oo amxaaradu ku dishay Togwajaale kadib markii uu diiday in uu dib uga gurto goobta uu calanka Soomaaliya ka mudnaa waxayna u babacdhigeen asiga iyo askartii yareed ee goobtaasi ku sugneed ciidan lixaad lahaa oo Itoobiyana isla markaana weerar gaadma ku ekeeyay waxaana la dilay asigoo difaacaya calanka ee dhaxda kaga taalo xidigta u taagan shanta Soomaaliyeed waxaa jirta oraah uu reebay oo ahayd war cadowga birlab maaha ee burburiya duuliye sare Cabdullaahi Weedow Maxamuud oo loo yaqaanay Weedow waa duuliye Itoobiya ay qabatay isla markaana ka soo baxsaday wuxuu sanadkii 1940kii ku dhashay degmada Buulabarde ee gobolka Hiiraan wuxuuna wax ku soo bartay dalweynaha Ruushka wuxuu xeel dheer ku ahaa gadgadoonka miiga asigoona hawada ku qori jiray Soomaaliya dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya ee 1977dii wuxuu burburiyay dhufaysadii xabashida ugu cuslaa waxaana hawada ku qabtay diyaaradaha dagaalka Itoobiya oo garbaha ka galay xilli uu rabay in uu garaaco talis u dhawaa Addis Ababa raadiyaha Itoobiya ayaa laga baahiyay in Soomaalida laga qabsaday miig 17 iyo duuliyihii waday waxaana duuliye sare Weedow lagu amray inuu ku dego garoonka Debrecen markii uu hubsaday in ay cagaha dhulka saareen diyaaradihii galbinayay isla markaana aysan ridi karin gantaal ayuu xawaaro ugu duulay hawada asigoo marba dhinac u rogayay miiga si aan loola helin rasaasta waxaana lugta ka haleeshay mid ka mid ah rasaastii lagu soo riday Cabdullaahi Weedow wuxuu diyaaradaha duulinayay muddo 20 sano ah wuxuuna ka gaaray darajo ah ilaa iyo gaashaanle sare waxaana la siiyay bilad geesinimo oo dahab ah wuxuuna ku geeriyooday magaalada Muqdisho bishii Oktoobar 1984 dagaalkii 77 ciidanka xoogga wuxuu ahaa 35,000 oo u kala baxayay 23 guuto oo infantry ah 9 guuto oo taangiye ah 9 guuto oo madaafiicda ah 4 guuto oo ciidamada cirka ah waxayna ciidamada cirka haysteen 52 diyaaradood ururka Israel waxaa lagu dhisay guri ku yaala wadada Via Roma ee magaalada Muqdisho waxaana gundhig u ahaa dastuurka ururka raadinta Soomaali weyn la dagaalanka qabyaaladda iyo in wax la baro bulshada waxaana markii uu horeysay xilalka ururka loo doortay Cabduqaadir Sheekh Saqaawudiin oo noqday gudoomiye Xaaji Maxamed Xuseen oo noqday gudoomiye ku-xigeen Yaasiin Xaaji Cismaan oo noqday xogayaha guud ee ururka Israel 1947 ayaa waxaa la go'aansaday in isbedel lagu sameeyo magaca xisbiga sanadkaas ayaana laga dhigay Israel Abriil 1950 ayaa maamulkii Talyaanigu la wareegay xilkii Soomaaliya waxaana Talyaaniga uu helinayay guddi ka kooban 3 dal oo kala ah Masar, Filibiin iyo Colombia oo wakiil ka ahaa qaramada midoobay Israel waxay sidoo kale ku guuleysatay 12kii Oktoobar 1954 in la taago calanka Soomaaliya kaasoo uu hal abuuray Maxamed Cawaale Liibaan kadib markii ay Soomaaliya noqotay dal la aqoonsan yahay wuxuu ururka Israel qayb ka noqday siyaasadii bisleed ee 1960kii ilaa 1969kii socotay goortaasi oo ay Soomaaliya kaga horeysay Carab iyo Afrikaanba dhanka isku tanaasulka iyo doorashooyinka waxaana taariikhda Afrika bahal dahab ah kaga qormay Aadan Cabdulle Cusmaan oo talinayay 1 Julaay 1960kii ilaa 6 Julaay 1967 kadib markii uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Afrika ee xilka si sharaf ku dheehan tahay u wareejiya haddii aad muuqaalkan wax uun ka faa'iiday fadlan nagu soo biir oo subscribe gareey channelka si aad ula socoto muuqaalada kale mahadsanidin